السلام عليكم soo dhawaada khiyaaray kulan kale oo xiiso badan waa muuqaaladii caafimaadka iyo cilmi nafsiga muuqaalka caawa maanta aan doonayay inaan idin la wadaago wuxuu ku saabsan yahay cinwaan psychology-ga ama cilmi nafsiga oo shakhsiyaadka marka la kala soocayo shakhsiyadda ugu dhibka badan in lala dhaqmo ama lala tacaamulo ha noqoto inaad meel ku wada kulanteen goob waxbarasho ama goob shaqo ama daa'iro caa'ili ama family ah intaba haddii aad qofkaas macnaha ku kulantaan habla dhaqankiisa inay aad u dhib badan tahay waxaana loo yaqaanaa narcissistic personality disorder hore ayaan muuqaalo hore uga sameynay balse waxaan rabaa sifooyin kooban oo qofka aad ku dareemi karto inuu cillad shakhsiyadeed leeyahay ay muhiim tahay inaad ku baraarugtid hore intaadan aysan adigana dhibaato nafsiga kusoo gaarin isagana aysan cilladaha ku fogaanin waxa ugu horeeya oo qofkan lagu dareemo oo lagu fahmo ugu weyn waxa weeye waa qof naftiisa aad u jecel si ka baxsan xadka macnaha inuu qofka naftiisa jecel yahay waa dabiici waa wax Ilaahay qofka uu ku abuuray laakiin qofkan wuxuu si xad dhaaf ah u jecel yahay naftiisa yani shakhsiyadiisa marka waxyaalo waxa lagu dareema iyo waxa jira inuu qofka aad naftiisa u jecel yahay waxa kamid ah mesela inuu qofka qof isla weyn yahay oo kale oo qof isla sareeya oo mesela noqonaya macnaha waxyaalaha yar haduu gaaro guul yar ka dhigaya wax ballaaran oo adduunkii oo dhan soo dumay oo kale ku tusaaleynaya adiga inaad macnaha la qaadatid maadaama uu injaas ama guul yar gaaray waa dabiici qofka haduu guul gaaro inuu yara farxo ama uu yara muujiyo inuu guushaas u gaaray laakiin wixii xadka ka baxsan ayaan ka hadlaynaa oo calaamad u noqonaya qofkan inuu leeyahay cilada narcissistic personality disorder marka ciladan marna waa cilad marna waa xanuun oo qofkii way ku ziyaadaysaa oo macnaha wax loo yaqaan wuxuu noqonayaa يعني إنه develop كرين narcissistic معناها أو حنونة لكن علادها ضد قيبتها يلان كرا مركي أنا درينتو إنه قف كان علادة ليه هاي وحي مهم أنتهاي لما عامل كيبلا دقن كأدلا دقن قف كسر دقن يزيد أما دريم يزيد إنه علادة ليه هاي وحي أديك مهم كوجتهاي إن هذا دبعته يسنكاسو قارين حبلا دقن كيسا waxaa sidoo kale cagsi oo ah macnaha inuu isaga waxyaalihiisa uu nafsiyadiisa kor u qaado shakhsiyadiisa jeclaado macnaha kibir ka muuqdo qof isla weyn yahay inuu dadka kalena uu jecel yahay inuu aad dhulka u dhigo oo uu yareysto oo dhulka macnaha dadkii uu ka dhigo dad aan jirin oo kale waa laba miisaan oo dhinac socdo weey qofka dabiiciga ah sax inuu ku farxo inuu muujiyo laakiin dabiici ma aha inaad dadkii kalena yareysato oo ka dhigto dad aan jirin ama habla dhaqankooda aad kaaga muuqato qofkaas saa ula dhaqmayso uu yahay qof ka liito ama ka hooseeya taasna waa calaamad aad muhiim u ah oo ay muhiim tahay inaad la socotid sidoo kale waxa weeye waa qof dadka maskaxda raba inuu ka qabsado oo maamulo oo يعني كنترولو oo ku hayo macnaha sida uu rabo dariiqa uu rabo waxa uu jecel yahay waxyaalaha nafsiyadiisa farxad gelinaya raba inuu ku gumeysto kale inta badan waxay u badan yihiin ragga laakiin sidoo kale dumarkana waa laga helaa shakhsiyadan balse ragga ay u badan yihiin oo sidoo kale waxay leeyihiin hab inay colaytan oo kale حتى هذا اسكو دوديين ama aad eheltiin ama aad saxaabtiin oo kale waxa ka dareemaysaa markuu xanaaqo kale in si cadaawad leh inuu kula dhaqmo oo ka baxsan sidii dabiiciga ah waxa kale oo aad muhiim u ah qodobkaas hore u soo sheegnay waxa weeye inuu qof aad u carab badan yahay oo aad u carab kulul yahay dabiici weeye qofka inuu wax ka caroodo uu diido laakiin in sida xindaabka loo macnaha la rabay inuu qofkan aad kula xiriirto inaad wax walba u burburiso wax xuduud ku celiya aad weydo waxay kamid tahay oo caradaada aad qof control waayo calaamad muhiim u ah inuu qofkan cillad shakhsiyadeed leeyahay marka cillad shakhsiyadeedka narcissistic
waxaa ka mid ah calaamadihiisa ugu muhiimsan inuu yahay qof carab badan haddana carab kulul xayndaabkii loogu baahnaana aysan celin karin sidoo kale wuxuu leeyahay qof aad u murugooda oo nafsiyaadkiisa burbur iyo macnaha ay ka muuqato sidoo kale yahay qof markiiba isgadin og oo hadda adoo farxad ku ogaa 5 daqiiqo ka hor isla markiiba aad arkayso isagoo markiiba isgadiyay isgadinta yani moodka ama yani waa xaalad gooni ah laakiin calaamadaha bay ka mid tahay inuu qofkan narcissistic qabo marka calaamadahan waa tilmaan inuu qofkan qabe ma sheegayso inuu yahay inuu xaaladaas qabo waxa kaliya cadeyn kara waxa weeye qof cilmigan psychology-ga bartay ama dhakhtarnimada xagga psychiatric-ga bartay ayaa xaqiijin kara laakiin waxa aanu macluumaadka aan halkan idinku soo gudbinayo yahay inaad ku baraarugsan tahay marka ugu horeysa qofkan calaamadahaas marka ku aragtid inaad iska ilaaliso oo uusan nafsiyaadkaaga burburin maadaama uu yahay dadka ugu khatarta badan ee dila nafsiyaadka dadka kale oo baabiya oo aad khatar ugu ah hadaba iska ilaali video hore ayaan ka sameynay qaabka aad ula dhaqmayso haddii ilaahay dumana muuqaalo kale ayaan ka sameyn doonaa hababka ugu habboon oo aad ciladan ula dhaqmi karto muuqaalkan intaan mid lamid ah ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iideen nagu soo biira insha Allah asxaabtaadana la wadaag muuqaalkan